أنا ويان هاي محن هايستا محن بدل كلا مشروعني يوميات رسالة مشروع أنا حولي هاي دور فايدة هذا كي حاجة عرضية هي حاجة دوكسية هي حاجة حريرك عرضية أي نص مينا يعني عرضية كلام بالشيء عرضية ومركي أي توبركي قاتين يسبدل بايو waxaan xalinay khilaafiyo waxaan hagaajinay iskuulkii taasoo ku beernay dadkii aan kalsooni haysan waxa yeeshay kalsooni iyo firfircooni oo macallimiinta wax ku weydiin karaan dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo ayaa ku guuleysatay fulinta dhammaan waxqabadyadii qorshaysnaa 4 bilood ee la soo dhaafay waxaanu barnaamijkan kooban ku soo qaadan doonaa qayb ka mid ah waxqabadyadii ugu muhiimsanaa ee daladu qabatay oo isugu jira dhanka mashaariicda iyo waxqabadyada ay daladu sida mutadawacnimada bulshada uga dhex fulisay waxaanu barnaamijka koowaad ku soo doona mashruuca Lotif oo iska kaashanayeen hay'adda Save the Children iyo dalada Soonyo waxaanu barnaamijkan ku eegi doonaa waxyaabihii la qabtay iyo natiijadii ka soo baxay mashruucan dawladda waxa ku suganahay dugsiga sare ee Gandhi ee secondary magaalada Hargeysa halkaas uu ka socdo mashruuc ay iska kaashanayaan dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo iyo hay'adda Save the Children ayaynu barnaamijkan ugu kurguli doonaa si aynu wax uga ogaano ujeedooyinka mashruuca shaqooyinka socda iyo in la gaaray hadafkii laga lahaa mashruucan sidaas darteed waxaan waraysiyo la yeelan doonaa qaybaha kala duwan ee uu mashruucan khuseeyo ardayda runtii waxaanu barnaa waxa weeye waxa la yiraahdaa tababarkan adkeysiga dhalinyarta haddaan in yar dul istaago waxa ardaydu ay adkaysi u yeelanayaan oo la rabaa sidii ay xaaladaha ama duruufaha soo wajaha siday u noqon lahaayeen kuwa adkaysi u yeesha oo kaga bixi kara hadba duruufta soo wajaha tababarkan aan qabanayno ee adkaysiga dhalinyarada 5 iskuul baana ka qabanaa iskuul walbana 2 qof ayaa ku qoran 5 iskuul waxa weeye iskuulkan Gandhi oo aan maanta ku suganahay aan joogo iskuulka Dayib Guray waxa kamid ah Aadan Sheef waxa kamid ah أجسبية دعسرة شيخ علي إبراهيم الله يقانو إيو محمد موجي واشنطن سكول. توبردن waxay qayb ka yihiin mashruuca Lotif oo ay maalgelinayso dawladda Denmark isla markaana ay fulintiisa iska kaashanayaan hay'adda Save the Children iyo dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo. waxaan ku tababaraa waxyaabo ka duwan iskuulka waxyaabaha ay ku qaataan casharada ku qaataan sida sayniska socialka waxyaabo ka duwan oo baritoona anfici doona sida sidoo ku maamuli lahaayeen qiiradooda amba emotionskooda farxadooda cadadooda sidoo xalin lahaayeen khilaafaadka bulshada ku soo wajahda sidoo iyagu khilaafaadkooda xalin lahaayeen sidoo control lahaayeen muxuuha dhibaatooyinka la soo darsaa iyo waxyaabo badan oo kale ay ka mid tahay hogaaminta waxa ka mid ah habka go'aan qaadashada oo ardaygu kaliya iskii intuu nafsadiisa la tashado hababkii wanaagsanaaye u mari kari lahaa sidoo go'aan qaadan lahaa sidoo kale xalinta khilaafaadka oo ugu dabaqi lahaa noloshiisa iyo dadka ku xeeran sidoo kale hogaamin iyo cidda wanaagsan ee uu ku dayan lahaa waxyaabaha uu kaga dayan lahaa waxyaabahaas ka mid ah waxyaabaha ardayda ku tababaran waxa sheegtay inaad ardaydii wax barteen laakiin ujeedada ugu weyn waxa weeyaan midhadhalka maxaa midhadhala oo indicator oo la taaban karo oo tacabka ardayda geliseen maxaa ka soo baxay maxay tahay natiijada waxa ka soo baxay runtii taasi waa su'aal aad u fiican farxaan oo aad baad mahadsan tahay ardaydu markii ay tababarkii qaateen isbedel baa yimid wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii aynu ugu kurgaleynay mashruucan dugsigan aan maanta ku suganahay dugsiga sare ee Gandhi waxa uu bilaabmay ardaydii marka ardayda bal waxaan weydiin doonaa bal waxyaabaha ay barnaamijkan ka filayaan si hadhow toole aan u ogaano waxyaalihii ay ardaydu barnaamijkan ka filayeen in la gaaray iyo in kale taasoo aan ardaydu marka ay training ka dhameystaana aan wareysan doono waxaan rajaynayaa tababarkan la siin doono inaan ku noqono arday dhiiran oo noqono arday horumar ka gaadha oo dib iskuulkooda faa'iido ugu celisa iyo waalidkooda iyo bulshada dhammaantoodba dhawaantii trainingkan maanta waxaan ka filanaya inaan ka faa'iidi doono waxyaabo kala duwan sida wax aniga aan anfaca bulshadana anfaca dadka kalena anfaca iskuulkayga laftirkiisana anfaca
waxaa lagu guulaystay waxqabadyadii qorshaysnaa 4 bilood ee lasoo dhaafay oo ay qayb ka ahaayeen tababaro loo qabtay dhalinyaro shaqo raadisa iyo tababaro kala duwan oo loo qabtay waalidiinta iyo ardayda 5 dugsi ee mashruucani ka soconayo. waxaa ugu muhiimsan aan ka bartay xariijinta nolosha, kalsoonida, hogaaminta, go'aan qaadashada degdega ah. waxaan ka bartay sidaan u xalin karo khilaafka iyo sidaan bulshada dhexdeeda wax ku soo kordhin lahaa. in iskuulkayga horumarkiisa qayb ka qaato kala noqdo qofkii ugu horeeyay iskuulka horumarinta ka sameeya. waxaan xalinay khilaafyo, waxaan hagaajinay iskuulkii taasoo ku beernay dhir. dadkii aan kalsooni haysan waxay yeesheen kalsooni iyo firfircooni oo macallimiinta wax ku weydiin karaan. waxaan la baray cashare aad u badan si ay loo helo dhir la harsan karo. aniga waxay qorsheysan iskuulkayga inaan kaga bedelo dhirta horta marka u horeysa inaan dhir badan ku beero maxay tolay si ay bilic u yeelato meesha. waxyaabo muhiimsanaan la baray waxay ahayd horta marka hore waxaan dhiganay 12 cashar 8 cashar ayaa ugu muhiimsanaa 8 cashar oo ka xasuustaa maanan ka faa'iideystay horta san anigu go'aan u qaadan lahaa ama go'aankayga u soo jeedin lahaa sidoo kale san hogaamiye u noqon lahaa bulshada u hogaamin lahaa. xirfado kala duwan oo lagu tababaray ardayda, tababaro kala duwan oo loo qabtay waalidiinta iyo macallimiinta dugsiyadan ayaa waxaa barbar socday dadaalada iskaashi iyo wada shaqayneed ee dalada Soomaaliya iyo dugsiyada mashruucani ka socdo ayaa laga gaadhay isbedelo horumarineed oo wax ku oola. maanta horta faa'iidadan ka haya waxa weeyaan training-kan aanu soo qaatay anigu soo bartay inaan nagu sii gudbiyo bulshadii kale sidoo kale bulshada kalena aan rajeynayno inuu sii gudbiyaan bulshooyinka kale. maanta waxaan barayaa go'aankii si naftooda go'aan uga qaadan lahaayeen, sidoo kale hogaamintii, sidoo kale kalsoonidii iyo sidoo kale xalinta khilaafaadka. halkan waxaanu isugu nimidnay inaanu 5 iskuul oo dugsiyada sare ee magaalada Hargeysa guddoonsiino 75 geed oo iskuulkiiba 15 la guddoonsiin doono oo laga beeri doono qalabkii beerista iyo qalabkii ilaalinta lagu iyo kuwii waraabka dhammaantood la guddoonsiin doono. waxa sharaf noo ah inaanu ka shaqeynayno oo dhalinyaradii ku jihaynayno ilaalinta iyo dhowrista deegaanka oo dadka dunyada iyo dadkaba saameyn aad u weyn ku leh. gabi ahaan dhaqaalaheenu wuxuu ku tirsan yahay xoolaha nool, xoolihii noolina deegaan bay ku sii tirsan yihiin, innaguna xoolaha nool baynu ku sii tirsanay. marka waxa weeyaan dhowrista deegaanka ayaanu ku jihaynaynaa maadaama dhalinyarta Soomaaliland tahay bulshada inta ugu badan oo 75% insha Allah taala Soonyo waxay ka qayb qaadanaysaa in iskuulkeena la qurxiyo. ardaydana hortii waxaan ku dardaarayaa inay markasta deegaanka ilaashadaan. nadaafadda iskuulku waxa weey aad muhiim u tahay. waraaqaha yaryar ee maaragtay iyo caagadaha biyaha lagu cabeeyo meel walba daadsan inaynu ururino oo meel maaragtay ku hagaajino oo ardaydu ay runtii maaragtay iskuulkooda ilaashadaan. arday kasta waxa weey haddii iskuulkooda ilaaliso marka nadaafadda way wanaagsanaaneysaa, deegaankiina way noo wanaagsanaanaya. maanta dhir baa laydinku wareejiyey, dhalinyarada dhir idinku wareejisay, marka bal dhirta laydinku wareejiyey sidaad u aragtay? والله si wacan baan u aragnaa iskuulkeena inaan daryeelno aanu dhir wacan ka beerno aad iyo aad bay runtii u wacan tahay waana wax ku dayasho mudan. dhanka kale halkan training ayaa ka socda. training-ka waxa wada dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo oo maadaama maanta iyadoo dhir la beeraya ayaa haddana tababar halka ka socda. soo sidaas maaha? tababarkaasi muxuu ku saabsan yahay? maxaa la idin baraa? maxaa ka faa'iiday? horta tababarku aad iyo aad buu wacan yahay. waxaana la baraa leadership wuxuu yahay hogaaminta. aad iyo aadna daladan waan ugu mahadnaqaynaa si wacanna way noo bareen arday ku dayasho mudanna way naga faa'iidi doontaa insha Allah. iskuulkaaga anaguna aad iyo aad baan sharaf ugu haynaa. ma la idin baray sida ardaygii waalidku wada shaqeynayaan, macallinkii ardaygu wada shaqeynayaan? maxaa la idin ka baray waxyaalahaas? wala na baray ardayga iyo waalidka iyo maamulayaasha way wada shaqeeyaan. ardayduna sidaas leeg wala shaqeeyaan macallimiinta iyo iskuulkaba. sidaas leeg galaas kasta wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay 5 arday oo ah galaaska hormuud ah. marka 5ta arday ayaa soo gudbisay cabashada galaaska ka jirta. deetana kuwaas baa maamulaha iyo waalidka iyo wixii saasa u sii gudbisa. mashruucan muddo dugsiga ka socday maxay tahay waxa waxtar kale ee aad u sheegi karayso bulshada iyo cid kasta ku daawanaysa ama faa'iidooyinka markii tan iyo mashruuca aad ka aragteen intii iskuulka laga bilaabay? waxaa marka hore mahad iskale Ilaahay oo noo suurtageliyay in maanta halkan noogu soo muuqataan dalada dhalinyarada Soonyo oo ay markaasi barnaamij ay si kaashanayaan si iyaga iyo hay'adda Save Children
barnaamijkaas oo runaantii ah wejigii labaad ee aan markaasi fursad u yeelanay ka iskuul ahaan inaan markaasi aan ka qayb galno kulli mashruucani my youth resilience mashruucan wuxuu leeyahay dhowr faa'iido haddii aan ka eego xagga ardayda iyo xagga dugsiga iyo xagga xiriirka ardaydu ay la sameynayaan ardayda kale ama bulshada sidoo kale waxyaabaha dugsigu ka faa'iido waxaa ka mid ah in ardaydii markaasi ardaydii kale ay markaasi ay maadaabuurka kale u soo jeediyaan inay ardaydu yeeshaan markaasi kalsooni iyo inay wax hogaamin karaan oo tusaalahaan maanta waxa weeyaan axadii oo kale waxay sameeyeen in ay guriga isku yeereen ay training laftigiisii ay dib u ardaydu u baraasgareeyeen dabeetana ay tuseen sida wax loo hogaamiyo go'aansa loo qaato dugsiga ay markaasi ay ku soo kordhiyeen waxa kamid ah in xashiishkiisu ka yaalay ay si mootadawaanimo ay u bureen oo sidoo kale ay iskuulkii sameeyeen in dhirayn ay ku sameeyeen oo ay markaasi ay soo dejiyeen intay soo saareen guddi markaasi ay u bixiyeen guddida deegaanka ay markaasi ay kala qaybsadeen dabeetana ay departmentationkii ay sameeyeen ay ku dhaqaaqeen insha Allah inay dhirtii beeraan qalabkii iyo wixii oo dawladda dhalinyarada soo ay noo keentayna ay markaasi ay isticmaalaya ay haddana wixii kale u baahnaayeen iyaga laftooda dhexdooda intay iska wariyeen ay dhirtii ay insha Allah beerayaan marka waxaan kusoo gabagabeynaa insha Allah taala aad baad mahadsantihiin dawladda dhalinyarada soo iyo hay'adda Save Children oo si kaashanay barnaamijkan waana xanan talo soo jeedin lahaa in barnaamijka insha Allah taala lagu sii bilaariyo iskuulada mashruuca Nigista Economy oo kamid ah mashaariicda ay fulintiisa iska kaashanayaan dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo iyo hay'adda SOS ayaa waxaa shaqo carbin lagu tababaray 100 arday oo kamid ah ardaydii jaamacadaha ka soo qalin jabiyay dhanka kale dalada dhalinyarada Soomaaliland ayaa soo qaban qaabisay kulan lagaga hadlayo caqabadaha iyo fursadaha online-ka xilligii lagu jiray corona kulankaas oo ay ka soo qayb galeen dad kor u dhaafaya 100 qof oo isugu jira mas'uuliyiin iyo dadweyne caadiya kala dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo waxay tababar u qabatay 100 dhalinyaro oo lagu tababaray halabuurka ganacsiga waxaana dhalinyaradu la yimaadeen qorshe ganacsiyeed waxaana tartanka ka qayb galay 12 group halka 6 group oo kamid ah 12kii group oo tartamayay ay ku guuleysteen xaddi lacageed oo kala duwan barnaamijyada kale ee dalada dhalinyarada Soomaaliland hirgelintooda ku guuleysatay waxaa kamid ahaa xus ballaaran oo loo sameeyay maalinta dhalinyarada adduunka oo lagu qabtay Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa munaasabadaas oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan iyo dadweyne aad u tiro badan lagu tababaray inaan noqono TOT inaan trainers to trainer of trainers inaan naga noo tababaro lagu tababaro social accountability and rule of law waxaan lagu tababaray social accountability-ga oo qaabkii government-ka iyo citizens-ku ay isla xisaabtan dhabi u dhexdooda uga dhacay lahaa isla markaana loo abuuri lahaa relationship ka dhaxeeya citizens-ka iyo government-ka waxaan ku tababarnay waxyaanaga lagu soo tababaray social accountability and rule of law waxay ka faa'iideyaan maadaama qof kasta uu organization ka yimid oo organization matalayay waxay sii qaadeen xogtii si anagu aan u tababarnay annagana loo soo tababaray iyaguna waxay sii gudbinayaan cilmigii training-kan horta markii loo tababarayay fikrado badan baa lagu tababarayay waxyaabaha kamid ahaa rule of law social accountability waxyaabahan ka faa'iidnay waxa weeyaan si aan anagu laftigayga dib u tababari karno oo TOT anaga tababarka noo siinayn dib u tababari karno waxyaabaha kale oo kamid ka aad uga faa'iidnay waxa weeyaan in isla xisaabtan aan dhalin karno anaga laftigayga aan sameyn karno aan la xisaabtano roolkii aan lahayn inaan ogaano in cid aan dooranayno ama noo matali doonta xukunka oo noqdaan dad aan ku doorano hadhow toole roolisa anagu fahansanahay oo doonino waxyaabaha kale aad uga baran inaan dib isla xisaabtan u gelin karno ciddii laftigeeda aan dooranay
oo aan dib ula xisaabtami karno ugu dambeyn waxaan mahadnaqayaa onaf iyo soonyo oo barnaamijkan iska kaashaday fursadda weynna siiyay inaan noqono tiimkii tababarkan qaatay dalada dhalinyarada Somaliland ee Soonyo oo kaashanaysa hay'adda qaramada midoobay ee UNDF ayaa waxay 6 gobol ee Somaliland ka aasaastay ururo dhalinyaro oo lagu tababaray isla xisaabtanka si ay ugu kuurgalaan mashaariicda saameynta ku leh qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo barnaamijkan looga gol lahaa isla xisaabtanka mashaariicda ka socota wadanka 24 bishii 6 ee 2020 ayaa dhalinyaradii mashruucan lagu tababaray waxay shaqo isla xisaabtan iyo kuurgal ka bilaabeen xarunta degdemiska qaranka ee magaalada Hargeysa sidoo kale dhalinyarada gobolka Awdal ee mashruucan lagu tababaray ayaa waxay kormeer iyo qiimeyn ku sameeyeen bridge isku xidhaya jaamacadda Amuud iyo magaalada inteeda kale halka dhalinyarada gobolka Saaxil ay kormeer ku sameeyeen iyo qiimeyn mashruuca dhismaha ee dekedda Berbera iyadoo dhalinyarada Ceergaabo ee mashruucan ka faa'iideysanaysiina ay qiimeyn iyo kurgal ku sameeyeen wadada isku xidhaysa gobolka Sanaag iyo wadanka intiisa kale halka dhalinyarada Burco ee mashruucan ka faa'iideysanayay isla markaana lagu tababarayna ay qiimeyn ku sameeyeen mashruuca caafimaadka iyadoo ugu dambeyntiina dhalinyaradii mashruucan lagu tababaray ee magaalada Laascaanoodna ay qiimeyn ku sameeyeen garoonka Cabdi Bile Cabdi ee magaalada Laascaanood sidoo kale waxqabadyadii mashruuca UNDF waxaa qayb ka ahaa waxa dib u eegis iyo wax ka bedel lagu sameeyay 3 siyaasadood oo saameyn ku leh guud ahaan bulshada gaar ahaan dhalinyarada iyadoo lagu soo kordhiyay mabaadi'da isla xisaabtanka bulshada iyo hay'adaha dawladda iyo adeeg bixiyayaasha siyaasadahan dib u eegista iyo wax ka bedelka lagu sameeyay ayaa waxa kamid ahaa siyaasadda caafimaadka siyaasadda waxbarashada iyo siyaasadda shaqo abuurka oo ay dalada dhalinyarada Somaliland ee Soonyo kala shaqeynayeen hay'adaha ku shaqada leh tani markay golaha wakiiladu bilaabeen inay wax ka bedel iyo kaabis ku sameeyeen xeerka doorashooyinka dalka ayaa qodobada soo jeedinaha wax ka bedelka xeerka doorashooyinka qaarkood waxay si toos ah saameyn ugu yeelanayaan dhalinyarada musharaxiinta ay tartami doona golayaasha deegaanka dalada ururada dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland Soonyo waxay lobby iyo maaragtay campaign ugu jirtay qodobo saameyn toos ah ku lahaa dhalinyarada hanka siyaasadda leh raba inay doorashada soo socota ka qayb qaataan ay golayaasha galaan laba qodob oo saameynaya baa jira dhalinyarta oo gudahoosaadka arrimaha gudaha iyo amnigu ay kaabis iyo wax ka bedel ku soo sameeyeen xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland laba qodob waxay kala ahaayeen qodobka 28aad iyo qodobka 84aad tusaale ahaan qodobka 28aad wuxuu sheegayaa da'da uu ku galayo qofku inuu golaha deegaanka u tartamo markii hore waxay 25 laakiin gudahoosaadku waxay soo gudbiyeen in 30 jir uu gali karo qofkaasi darajada A oo kale waa inuu heer jaamacadeed yeesho iyo 5 sano khibrad bay yiraahdeen waxa kale inta raacsanayd isla qodobka inuu qofku hanti guurto oo mood iyo noolba oo u dhiganta lacag 600 milyan oo Soomaaliland oo marka dollar loo rogo noqonaysa ku qiyaas ahaan adu $70,000 inuu ku leeyahay degmada oo ka register garaysan oo cashuuran waxa kale oo jiray lacag qodobka 48aad sheegay deebaajiya oo dhalinyarada sharaxaysa lagu waajibinayay lacag aan dib loogu celinayno 40 milyan degmooyinka darajada ee 10 milyan sidii guddidu soo gudbisay degmooyinka darajada B 7 milyan degmooyinka darajada C dadaalo badan oo hoggaanka sare ee daladu ka sameeyay qodobadan sidii meesha looga saari lahaa ayaa lagu guuleystay in dhammaan qodobadii caqabada ku noqon lahaa dhalinyarada musharaxiinta ah laga saaro xeerka doorashooyinka waqtigan golaha ansixiyay waxaanu la kulanay horaantii markii intaan dooda xeerka la gelin markii la qaybiyay xeerka shir gudoonka golaha wakiilada iyo gudahoosaadka arrimaha gudaha iyo amniga oo ahaa guddidii soo gudbisay si wacan bay noo soo dhaweeyeen waxaanu la kulanno kale xildhibaano doora oo golaha wakiilada ayaanu la kulanay duruufta dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka warqabaan baanu ku qancinay inay takliifaadka la saaray iyo hawshaas oo dhami ay aad u adag tahay badankoodu xildhibaanadu way nala qaateen kadib tiraba 3-4 jeer ayaanu la kulanay hadana shir gudoonka si wacan buu noo soo dhaweeyay si fiican buu nooga shaqeeyay hawsha xildhibaanada sharafta lana way nala shaqeeyeen waxa kale oo kala kulanay gudoomiyaasha 3 garab ee dhalinyarada
saddex xisbi qaran oo iyaguna dadaal adag nagala galay hawsha oo na garab istaagay doodihii 5 cisho socday ee xeerka waanu ka qayb qaadanay waanu tagnay maalin kasta loobigana waanu wadnay waxa kale oo la kulanay madaxweynaha qaranka arrinkanna waanu kala hadalnay dadaalada dheeriga ah waxaan ugu gelinay waxa weeyaan in la helo dhalinyarta la siiyo fursad ay qarankooda iyo dalkooda ugu adeegaan oo ay ugu shaqeeyaan alxamdulillah golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu soo gabagabeeyay oo ansixiyay xeerkii doorashooyinkii diiwaangelinta codbixiyaasha qodobadii aanu ka cabanaynayna hoos baa loo eegay waan aad uga mahadnaqayaa shirgudoonka golaha wakiilada iyo xildhibaanada sharafta leh dhammaantood inay cabashadii dalada dhalinyarada Soomaaliland Soonyo dhalinyarta matalaysay ay u gudbisay inay u dhaganuglaadeen oo ay weeleeyeen oo ay naga ajiibeen si sharaf leh nooga ajiibeen marka qodobadii aanu ka cabanaynay dhalinyarta aan lahayn saaxaday ka saarayaan siyaasadda inay soo galaan oo ay dalkooda u adeegaan dhalinyarta hanka siyaasadda leh golayaasha raba inay ka qayb galaan waxa ka mid ah qodobka 28aad daadii 30 bay ka dhigeen degmooyinka darajada ee waana inuu qofku haysto digriga koowaad ama tacliinta heerka koowaad ee jaamacadda iyo 5 sano oo khibrada halka degmooyinka darajada B iyo C oo marka hore la mid ahaa kuwa ay ka dhigeen laakiin inuu yeesho tacliin dugsi sare iyo 3 sano oo ah khibrad marka daad oo ka ahayd tagliifaadkii aadka u badnaa ee qodobkaasi sheegay ee ahayd inuu hantima guurta oo moodiyo noolba qofku yeesho oo 600 milyan u dhiganta ama $70,000 taana way ka garaabeen oo gabi ahaanba meesha way ka saareen oo dabarka ugu weyn ahayd deebaajigii qofka musharaxa ee dhalinyarta laga qaaday 40 milyan ahaa ilaa 4,700 ilaa 5,000 u dhaxaysay isagana waxay ka dhigeen 15 milyan degmooyinka darajada ee degmooyinka darajada B 10 milyan 7 milyan bay ku soo celiyeen degmooyinka darajada C oo 5 milyan ahana 4 milyan bay ka dhigeen waxaan filayaa markaa inay saaxadii dhalinyarta u bannaan tahay kubadii xagga dhalinyarta u soo wareegtay inay tartankii ka qayb qaataan baanu dhalinyarta ugu baaqaynaa waxaan halkan baaq uga dirayaa xisbiyada qaranka saddexda xisbi qaran oo aan ugu baaqayo inay soo xulaan dad ilaahay garanaya oo ammaano leh oo aqoon leh oo karti leh oo dhalinyartiina matalaya qarankii iyo dadkoodii iyo shacbigoodiina wax u qaban karayo adeeg bixiyaal fiican u noqonaya shuruucda ay soo saarayaan si fiican u jaangoynaya dadkii la duruufa oo aan ka shaqaysanayn waxaanu ugu baaqaynaa xisbiyadu inay hoos u eegaan dadka ay xulayaan oo aan loo eegin qabiil oo aan loo eegin asbaabo kale laakiin ammaanada iyo alla kacabsiga iyo aqoonta qofka loo eego kriteeriyada lagu xulayana dadka la adkeeyo oo la soo xulo dad ammaano leh waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaasha saddexda xisbi qaran ee garabada dhalinyarada oo iyaguna arrinkan si fiican noogala qayb galay waxaa kaloo u mahadnaqayaa shirgudoonka golaha wakiilada iyo xildhibaanada sharafta leh waxyaabaha ay daladu dhalinyarta ku matasho waxaa ka mid ah inay xuquuqaha u raadiso inay siyaasadda ka qayb qaataan marka tani waxay ka mid ahayd doorarka iyo waxyaabaha mandate-ka dalada ayay ka mid ahayd aad baan uga mahadnaqayaa hogaamadii hore iyo halkay dalada soo gaarsiiyeen oo ay ka mid ahayd 2012 in hawshan ay galeen mar labaad annaguna aanu galnay barnaamijyada kale ee wax ku oolka ah dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo hirgelintiisa ku guuleysatay waxaa qayb ka ahaa hirgelinta Soonyo Cup koobkaas oo bilaabmay taariikhdu markii ay ahayd 3 bishii 3 ee 2020 ayaa waxaa ka soo qayb galay 10 kooxood oo kamid ah kooxaha heerka koowaad ee caasimadda Hargeysa iyo 2 kooxood oo ka kala socda magaalooyinka Boorame iyo Berbera waxaana koobkan ka qayb galay in ka badan 300 oo ciyaartoy halka dad badanna ay si toos ah ciyaartan uga daawanayeen Hargeysa Stadium maanta waxaynu si rasmi ah u furaynaa isku aadka tartanka kooxaha heerka koowaad ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa oo loogu magac daray Soonyo Cup 2020 Soonyo 2020 waxa tartankani uu ka yimid initiative ka yimid ama curin ka yimid dalada heer qaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Soonyo weeyi waxaana weeyaan dadaalada aanu rabno inaanu dhalinyarta wax ku celino oo aanu ka taageerno
hadday noqoto dhinacyada kala duwan ay ka tabayaan in wax looga qabto tartankan waxaanu iska kaashanaynaa wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha Somaliland iyo xiriirka kubadda cagta Jamhuuriyadda Somaliland haddii maanta aynu fadhino inagoo ka wada hadlayna maaragtay fixture-kii horyaalka inagoo ka wada hadlayna ay maaragtay ka farxad badnaan lahayd ilaahay idinkiisa kaasina uu daba socdaa Soonya waxba kala hadhmaysa inay dhalinyarta qof magac dhalinyarta qaatay oo yiri magacii dhalinyarta metelaya oo haddana sports waxba ka qabanayni waxa weeye waa moojisku dee dhalinyarta u sheegan karayo waayo waxa weeye waa qayb weyn weeye sportsku dhalinyar badan baana maaragtay xaggaa jirta marka insha allahu tacaala waynu iska kaashanaynaa maaha annaga uun waynu iska kaashanaynaa taageero badan baa laydinka baahan yahay koobkan oo soo maray marxalado kala duwan ayaa si weyn u soo jiitay indhaha caalamka waxaana koobkan si toosa looga daawanayay daafaha caalamka haatan ciyaartii waa bilaabmaysaa kooxda wasaaradda maaliyadda iyo kooxda dawladda hoose Hargeysa oo ku ciyaaraysa magaca caasimadda ee tartanka ciyaaraha Soonya Cup ee sanadka 2020 ama sanadka 2020 ee kulanka ciyaarta haatan bilaabmaya waa kooxda dawladda hoose Hargeysa oo kooxda xidigaha caasimadda iyo kooxda wasaaradda horumarinta Jamhuuriyadda Somaliland ee wasaaradda maaliyadda 18 ee kubadda waa timi ciyaartayga gool hay boqole waxaana uu koobkani guul ku dhamaaday taariikhdu markii ahayd 12 bishii 8aad 2020 taasoo ciyaartii kama dambaysta ahayd ay isugu soo hadheen kooxda gaashaan iyo kooxda ku ciyaaraysay magaca wasaaradda maaliyadda halkaas oo ay guusha ku raacday kooxdii ku ciyaaraysay magaca wasaaradda maaliyadda Abo waa keenay kubadda markan Abino goal! Ese Stadio Soonya 2020 ciyaarta kooxda wasaaradda maaliyadda ayaa guuleystihii Soonya Cup noqotay maaliyadda Glory si maaliyadda Tamaam Taxi maaliyadda markan ciyaarta waxay noqdeen kooxdii ku guuleysatay Soonya Cup kaasigii waa kan markan daawadayaal kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda waa u sharaxan tahay kooxda caasimadda degtay koobkii ay qaadatay 2020 intaa kadib dalada dhalinyarada Somaliland ee Soonya waxay abaalmarino iyo shahaado sharaf ku maamustay qaar kamid ah shirkadihii iyo hay'adihii dawliga ahaa ee sida gaarka ah uga shaqeeyay Soonya qabsoomida koobkan